barnaamijkii 219 maanta ayuu soo xirmay dad fara badanna runtii lacagahooda ayaa lagu dhacay barnaamijkan runtii ahaa barnaamijyadii muddadii ugu dheereed ku jiray suuqa oo laakiinse ujeedadiisa ugu dambaysa ay ahayd sidan maanta dhacday ayaa runtii dad fara badan ay aaminsanaayeen ayaa lacagtoodii maanta si bareer ah oo maalin caada lagu dhacay kadib markii loo soo diray signal 100% loss ah kaasoo runtii ay ku waayeen dhammaan lacagihii applicationka kaga jiray taasoo markaa ujeedada ka dambaysa ay ahayd in si bareer loo xalaasho dhammaan lacagta dadkaas iska leeyihiin iyadoo la iskaga dhigay inay signal ku khasaareen oo kale intii qabto I'm happy Soomaaliya dhahay laakiin in dooli cunay newska aan ku soo toosay news aan aad ugu farxo ahaa waxa laga yaabaa inay israadid xatanaasrow ustaad maxaa dhahay in fiican aan ahaan jirin oday ah dhalinyarada ay ku dhageystaan maxaad u faraxsantahay 2139 from January ilaa hadda idin sheegay pyramid scheme ay ahayd in lagu jabayo lacag badan la kaga dhacayo haddaba saaxiibayaal waxaad halkan ku soo mishan gareysaa qof ku jira barnaamijka 219 amaba si inuu ku lug lahaad u maleynaysid soo kale muuqaalka waxa la wadaagaa saaxiib kastoo uga digisid barnaamijka noocan oo kale in lagu dhaco mar oon haddaad ku cusub tahay boggeena flow day oo ku soo biir haddii dhanka YouTube aad igala socotidna subscribe tahay ilaawa saaxiib barnaamijka 219 ayaa gebi ahaanba suuqa ka baxay maanta micnaheedu ay tahay waxa dhalinyarada loo soo diray signal 100% loss ah taasoo ay ku waayeen dhammaan lacagihii kaga jirtay runtii dhalinyaradan waxay u badnaayeen dhaqaale fiican ka sameeyay 6 bilood la soo dhaafay balse laakiin ujeedada iyaga ma ahayn ujeedada waxay ahayd dadka barnaamijkan xagga dambe ka aamina ee sidoo kale lacagaha fiican gashan doona si loo dhaco maalin cad oo mar kaliya dhammaan iyagoo arkaya lacagtoo dhan lagala baxo runtii barnaamijkan wuxuu ku shaqeeyaa sideen hore u sheegnay pyramid scheme ama barnaamij waxa weeyaan u shaqeeya sida axraamta kale oo ah in adigu aad saaxiibka keento saaxiibkan uu saaxiibadii keeno saaxiibkan uu saaxiibadiisa kala sii keeno runtii taasoo keenaysa in la dhaco dadka xagga dambe kaga soo biira macnaha adiga waxa laga yaabaa inaad ka faa'iidid saaxiibkaaga inuu ka faa'iido saaxiibkiinu ka faa'iido balse laakiin dhammaan dadka intaa ka dambeeyo dhan in hal mar la dhaco iyagoo aaminsan barnaamijkan inay noloshooda u safe gareynayo runtii barnaamijkan maanta saasoo los ku galay balse wuxuu cashar fiican u yahay qof kastoo aaminsanaa barnaamijkan in dhaqaale fiican laga sameynayo qof kastoo aaminsanaa inuu noloshiisa waxa weeyaan uu heer ku gaari karo barnaamijyada noocan oo kale ah ma soconaysa saaxiib balse laakiin ujeedada barnaamijyadan laga leeyahay sideen horeba u sheegnay waxa weeyaan in aaminaad laga abuurto oo markii aaminaada laga abuurto aad asxaabtaada u sheegtid qoyskaaga u sheegtid dadka ka agdhow aad u yeedhid kadibna barnaamijkan xagga dambe markaa lagu dhaco dhammaan dadka barnaamijyadan waxa weeyaan maalgashadoo dhan barnaamijyo kale waxaa jira sidoo kale waqti xaadirka suuqa ku jira oo iyagu weli aan kicin balse laakiin la mid ah isla barnaamijkan 219 iyaguna digniintooda ayay wataan oo wax laga hadlaba maahe oo waxa weeyaan iska cadba wad aragtid qaabka ku socdaan haddaba dhalinyarada sidee loo dhacay sideeba 100% loss loo geliyay 100% loss waxa loo geliyay barnaamijkan iyo applicationkan waa wax ay samaysteen maha wax trade ku shaqeynaya mana ahan waxa weeyaan suuqan caalamiga ee cryptoda ku shaqeynaya waa barnaamij iyo application ay raggan iyagu samaysteen kaasoo ay kaaga dhigayaan lacagtaadan inaad ku trade garanaysid hadhow haddii khasaaraad gashidna ay ku leeyihin oh sorry khasaarahan waa waxaan u samaynahay dhammaanta khasaaraan gallay balse laakiin waa barnaamij iyagu isku xidheen oo lacagtuna iyagoo ay ku hayaan macnaha haddii ay go'aan ku gaaraan lacagtaada inay kaa xanibaan way kaa xanibayaan haddii ugu talagalaan los inay ku geliyaan sida maanta oo kalena way ku gelinayaan haddii ugu talagalaan lacagtaada inaad la baxdid waad faa'iididna waad faa'iidaysaa macnaha ma aha wax yacni adigu aad maamulin kartid balse waa wax adiga lagu hayo marka maanta barnaamijka saas ayuu los ku galay loskuna wuxuu ahaa los iyagu ay samaysteen oo khasaare iyagu ay abuureen si ay dhammaan lacagahan dadku leeyihiin oo dhan ay u xalaashadaan insha Allah waxaan rajaynaynaa inay dhammaan wixii ka dambeeya ay u noqoto cashar wanaagsan oo ay ka waantoobaan Cabdinaasir Soolo runtii ku xil dheer barnaamijyada cryptoda ayaa barnaamijkan in badan ka digay runtii dhalinyarada uga digayay inay maal gashadaan ama lacagahooda ay dhigaan balse laakiin maanta waxaan rajaynayaa in dhammaanteen baan wada aragnay barnaamijkan iyo sidii uu maanta ku dambeeyayba